because markaan aan tagay wadankii waxaan arkay inaan dubka dadka iskaga egnay Soomaalinimadii luqadiina way ugu adkeed markaas laakiin waan ku hadlayaa Soomaaliga de guriga looga hadlo laakiin af Soomaali aan ku shaqo tago meesha ma oolin taa caqabad bay noqotay wadankii oo fahansaneen systemkii la iska dambeeyo wax walba sharci lahaayeen ba halkana iyo wadankeeniyo de qof walba waji meel ma ku yaala wadankeena dadku waxay barteen Soomaha in hay'adii wax keenan waxaan ku yiri tuugsigana waan ka faanayaa since Soomaalinimada ay ugu jirtay organization iyo hay'ado iyo Sweden waa dadka kheyraadka dadka ugu badan Afrika bixiya laakiin haddana waxaan isiri Ilaahay idinka waa in ka dhaliyo koow haysta inta tuugsan lahayd qof facaya cadaana oo wadankiisa kugu martigeliyay inta haddana gacanta u sii horsan lahayd kuwiina wax bartay horta aad iska bilow maxaad ku soo kordhisay markaad maxaad qabatay isbitaalka waxaan ka bilownay TB-da oo markaa tiitiin wada qariyay darbigiisa aan la arkayn marka aad bay ii dhibtay isbitaalka banaankiisa aad moodo qasho qof intuu imaado golo caafimaad baraya qof dadkii shaqaalihii oo taagan oo heegana haddana baraya ama waji ku raadinaya ila tacaal wax iga daadeg la weeyaan ilaa hadda